السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لها قالقة يا كحرن جرن كنعيم وباد سود باد ولا لهيقة عن جعلهاي كليلاب waxaan horta aad iyo aad uga xumahay gabadhii yareed ee Puntland lagu kufsaday boosaaso lagu sii kufsaday tuulo lagu sii kufsaday ma garateen yaa horta jannatul firdawso allaha geeyo saqiire ahayd gabar yare ahayd yaa aan waxba galabsanin masaakiin ah yaa ragga Soomaaliyeed hadduu yaryahay iyo hadduu weyn yahaba yaa intii fiicneed inta xun ayaaba ka tan badanba oo maalin walba dil noo geystaan oo kufsi noo geystaan bal arag ilaan kugu dhaariyo kulaha gadaalaan u xiray kan yaroo gaaban yah mana yara coonkee dad baa ku haya wuu yaryahay ma yaro coon waa coon because cunug yar gabar maba haweysan karaba dareenna ma yeelan karo ma garat cunug yar kaas kale kamaba yaraba wuu ka dheeryaale ma ogi kane isku facle waa hadduu ka weyneynba gaabkoo puuskoo waay ma garateen yah marka dad baa ku haya cunugaas maxaa laga waxaynayaa haddii adiga kugu dhici lahayd cunug yaroo laba jira xitaa hadduu kaa kufsalo waa uu dili lahaa gabadhaada waad ooyi lahayd dhulka ku galangal lahayd nin qofkaasna waad jarjari lahayd ma garatay marka gabadhaas laakiin aniga waxaan la yaabay ninkii soo lugooyay gabadha yartaa ee inta wacay dhahay gaari soo raac markay boosaaso timid taleefankii ka dansaday meelaynu weligeed aynan aqoonin imaado gabadhaas yah soo raac gaariga ku yiri gaariga markay soo raacdana taleefankii uu ka dansaday meelay aada mataqaan baskii saaranta ee iyaga ay wadeen gaariga ay wadeen markay keligeed ku noqotana meesha duurka cidlada ay geysteen meeshii casho lagu cunay ayadiyaa lagu baashaalay masaakiinta ilaahay u naxariistee oo si xun loo galay kadib cimaamada lagu ceejiyey wata afkooda ay ka qiranayaan cimaamada markii lagu ceejiyo yiri way dhacday inay dhimataa u maleynaynu dhahay haddana madaxa ay soo qaado yiri saas ile nafa u yaabtay kii gaabnaa muxuu yiri naga keenaan dhahay kulaha qafta naf oo waxba ahaynaa ku jirtee naf hadday ku jirto naf haddaysan ku jirin waay gaariga loo marsiiyey gabadha ani waxaan aaminsanahay oo maaragtay aan fikirkayga aniga aan ka qabaa in gabadhaas ay nooleyd oo gaariga la dadarsiyo dhiman weyse oo laakiin iyadoo tacbaana hadda qof lugihii iyo gacmihii laga xirxiray ordi karin maalintii oo dhan safar soo ahayd yaa oo kan gaaban uu yiri guriga eedadayaan ku seexinaa gabadhi soo hogaami diririg ileen meelna ma taqaaneen tuulada keene ilaahay kuuma saban diidee meesha lagu cesheeyey cashaan cunno ku yindha adeygooda gabadha yareedna oo xirxirantaa wanbaa u qalab ilaahayna aragtay xaqi ayaa soo qabtay afkooday ku wada qirteen kulligood ma garata wixoodina waa laga helay dad baa cunug yar ma ahan cunug yar meesha ma joogo marba hadduu qaan gaaro uuba haweystaba gabar inay maaragtay ay kufsadeen meesha ilmo ma joogaan ma garateen gagaaban ilmo waay ma gaarina dadka ma maqlaay laakiin waxaas wax fiican ma ahan asagaaba u madax ahaaba oo hadallada inta u badan asagaaba ninkaa ra'yiga u keenayaba xataa gabadha asagaa hogaamiyo dhahay eedaday gurigeeda hooyaday gurigeeda ku geenaya dhahay ma fahanteen aad iyo aad aa xumaa horta ninkii soo lugooyana waxaa lagu xukumay 1 sano iyo $500 oo ganax ah aa lagu xukumay lagu leeyahay asaga la tirkiis dambi weyn ku leeyahay waayo gabadhaas duuta taleefanka uu ka dansaleen ama qof safar ku soo ah waa ku dadaali lahayd taleefankaas waayo adaa wacday way soo socotay inaa maar taleefanka aari dam ka siisatid waa laga fiicnaa ma garat way dhunta iyadana magaalada ma taqaan libaaxyadaani afka ugu dhacday waa soo wateen calaa ii taxaal si xun ayay u dileen laakiin waxaa iga dhicila qof aan nooleyn see gaari loo marsiinaya lagulaha wejigeeda inaan la aqoonsan qofkiisa haddii wejiga dhan qoorta xitaa dii laga jira waa la garanayaa maba ina sheegaysa sheegidaa ka baqayseene maxaa gaariga haddana haddii ay hore u dhimata bajuuq ugu siiseen Soomaaliya taas ma rumaysateen aniga sida ila tahay sorry taleefana soo dhahay aniga sida ila tahay waxay ila tahay inay gabadha dhiman weyse cimaamada lagu jiiday oo geeska sir lagu siiyey
markay suuxday ama ay soo yara kacday tan maba dhimanaysa isdhin kowdhe madaxii ayadoo tabcaan oo gacmihii alla maxay rafaad aragta laa ilaaha ila allah maxamed rasuulullah gabadhaa silacay u dhimatay ilaahan ku dhaartay silacay u dhimatay ee madaxa meesha inta loo geliye laa ilaaha ila allah maxamed rasuulullah sala allahu calayhi wasalam ani waxaan qabaa gabadhaas inay hore u nooleed ee dhiman weyse cimaamadii ceejiskii ee ayadoo maaragtay rafaadsan oo kicila socola la kufsaday la faraxumeeyey gadaal loo xiray hore loo xiray in shaaga loo dhigay ee saas inta loogu seexiyey buduuq la siiyey way dhimatay marka hore way dhimatay kula haddana gaariyaa marsiina waxaas ma caqliya war soomaaliya ragga soomaaliyeed isku wada mid ma ahan laakiin shaydaan baad kugu qaada aad kufsatid nafta xuntaha oo dhaafinin gabadha u daa balaaya ha ku degtee maxaa nafteeda iyo silca aabadays mid daba kasoo tuuro mid dilo mid waxaan ku idhi hadda waxayba keeneenba hadda in la dilo waad aragtay waa layna soo qabanaya xaqiyaan idin soo qabanaya ma garatay walaalayaalo dhiig ma qarsoomo si kasto isku qarisid hal nin keligiis xitaa hadduu wax dilo oo waxa oo qof la ogaa aysan jirin ilaahay ma ogi kii la soo qabta le waa dhiig muslin dhiigba haddii aad geshid never mabahee qarsoomo waxaaba laga yaabi lahaa dembiga dilka iyo kufsiga dilka sii weyn inaaba haddii aadba kufsato waxaa laga yaabaaba dembigaaga xoogaa inuu yaraado inkastoo kufsiga laftirkiisu waxaa yahay muxuu ahayte khatar tahay laakiin naftaa kasii xanuun badan ma garateen nafta ayaa kasii xanuun badan misena way kala tahay silaca u disheentay cimaamaday ku ceejiye habeenkii oo dhan hayste way rafaadiye yaa shayddaanka ku jiro ee ku niikinaayo balaayi ha aragtee muxuu yahay ee naf dhan loo goynaayo sheeka hindiyaaba keenabe hindidaa saas kufsiga zaa'id ogaa gabadhi la kufsadana aabaadaan weligeed lama guursado saasay ku daqoobaysaa ee meelaha ku jiro tii waa tii ayagoo gaalo ah way ka xumaadaan hadda waxaa maqlaa diltooga shayba keeneenba qofka xitaa laga shakiyo gabar kufsado wuu kufsado bas dildha madaxa la qaadaya ma garateen marka inaad maaragtay gabar yar soo afduubataan maalin walba ee aasaas ku samaysaan tii aaqirana waa inkaga horeysaa puntland waan salaamaya maasha allah inta qof aan arkay ee xaqdarrada gabdhaha ku kufsadeen ay dileen maasha allah oo xaqoodii usoo dhiciyeen yaa meelo waxaa jirta qaarkood soomaaliya aan gabadha xaqeeda loo soo dhicinaynin ama arrin qabiil ama lacag ama wax ama mag lagu dhameey ma garateen laakiin puntland caasho waan arkay sida loo baaraa waa la keenay waa la dilay ilaahay ha u naxariista gabdhaha yararka ee la ugaarsanaayo kuwa weybashoo ka baqaayaanaba u malaynba naharaati ku dhufat ftada ka garaacdo ilmaa yararkay jiidanayaan yaa malaayga xagga yaalaa ka dharagteen makaasaysin idinka dhan dabada holac allah inka geliyey ilaah inkaga bariyey aaqirana inkaga horeysaayo bas marka ilaahay kuuma darnaadeen gabadhii ay silciyeen oo saas ay u rafaadiyeen hooyadii waad aragteen dhehayso saasaa macnaha beerkayga ilaahay muxuu ahay taa kuu boogadhayo ifka inay intaas ku noolaato ayaa qorneed ma garat ifka inay intaas 14 sano ay joogto ayaa qorneed waa wax horta xagga rabbaaniya laakiin shaydaankii baa adeeganayo maaragtay rabo in cadaabka lala galo ma garateen dunyada ilaahay naf oo la gooyo oo si kas ah u goyso ugu xun oo ugu daran ma garateen taasna cafis ma lahan marka horta puntland aad iyo aad u fiican tahay waana ku farxay wallaahi marka lasoo qabtay laakiin hadallada ee ka shaawl macnaha wixii oo maaragtay warays badan ma sii arkin la yiri iyo kaliya lala baxa iyo waa la helay iyo waa la qashay iyo madaxiya ka dhaawacneed kaliya la isla dhexwaday laakiin labada nin arrinta geysatay afkoodii ayay ka qarteen sida u dhiga xitaa ka sheekeynaya halkaasaan dhiga kana dhig waad aragteen maxaan kaga sheekeynaa walaalayaalo yaa xaqiyaa soo qabta waxaan idiin sheegayaa qofku wax kursado oo haddana dila inuu xaqa soo qabanayo because dhiigaa gasha see ku seexanaysaa maba seexan kartide adduunyo hurdo la-aan cariiri dhibaato aa kaa qabsanaysa ma garata marka inaaba tiraahdid oo nafta xuntaa shaydaan hadduu kugu qaado nafteeda yartaa ina u daysay ee dad dhanbe ee maaragtay gabar u ahayd masaakiin ahayd
gabdho iska jira ragayna ballansanahay taleefanada inii soo diro guryihii iyo meelahan iyo taraaga ugala iska ilaali waa ujeedin gabdhihii in la karkarsanayo maaragtay hilib ay noqdeen oo geed saaran oo saas loo wada dafaayo anka xumahay ilaahay ha u naxariisto ilaahay jannatul firdaws allah geey qoyskii ka geeriyootay geerida waa xaq laakiin silca dhimatay iyo kofsiga iyo gaariga lagu jiiray aniga ilaa hadda caloosheeda ka go-ila ee caadi u dhimatay qofka haddii la dhaho waxaa waaye geeridan xaq waay ilaahay hadduu maaragtay ilaahay waa nagu ammaanaystay berrina way go-aysaa xilligeeda loogu talagalay laakiin silaca iyo rafaadka ee ku dhimatay aniga ilaa hadda caloosheeda ka go-ila ilaahay waxaan ka baryaayaa walaa ani waxaan dhihi lahaa nimankaas sidii ay yeeleen inta la kufsado oo haddana cimaamada ay sheegayaan lagu marjiyo gaarigii laftigiisii yaa hala marsiiyo ayagana saasa loo marsiiyo madaxa inta loo dhigo ayagoo nool maaragt bajaqa lagu siiyo siday u dilan diloo dili lahaa okay ahaa laheyd yah waan salaamayaa asxaabta qaaliga sheer gareeya naanaa hadde wallahi maalin walba dhegaheen wax cusub ayaa imaanaya dilka sii fool xun marka dhibaato waaye sheer gareeya oo naanaa ka siiye ma garateen waan salaamayaa